waxay dumiyeen gurigii Abuubakar si ay u dhisaan hotelka Hilton waxayna u bedeleen gurigii Khadiija musqulo dadweyne sidee ayay Maka isugu bedeshay Las Vegas waxaa lagu tiriyaa xajka mid ka mid ah shanta arkaan islaamka wuxuuna waajib ku yahay qof kastoo awooda waxayna muslimiintu aaminsan in raacidda wadadii uu maray Nabi Ibraahim iyo qoyskiisa iyo ku celinta wixii uu sameeyay Nabi Maxamed iyo adeecida Alle iyo inay weydiistaan dambi dhaaf inay ka tirtirayso dambiyadii hore ay galeen waayadii hore xajku wuxuu ahaa mid dadkoo dhan ah laakiin dadkoo dhan ma wada awoodi karaan inay gutaan waajibaadka xajka bartamihii 1950 dadka xajka soo aadi jiray ee ka imaan jiray dibadda waxay ahaayeen kuwa aan dhaafin 100,000 qof laakiinse maanta ilaahay mahadii horumarada laga sameeyay aaladaha casriga ee safarada sida diyaaradaha iyo ballaarineed isixiga ee xukuumadda Sacuudiga ku sameysay xajka waxay Maka qaabishay 3 milyan oo xujay oo ka kala socda daafaha dunida dadku way kordhayaan ajarkuna wuu badanayaa dhinaca kale dakhliga ayaa siyaadayay xilliyadii hore dadku waxay ka sanaayeen dhanka cuntada iyo dhibaatada safarka iyo labiska laakiinse maanta waxa ahaaday xajka shan xidiglaha iska ilow dhibaato shay kasta waxa qabanaya adeegayaasha iska ilow inaad salaada ku tukato xaramka fadwo yar oo la soo saar ayaa kugu abaalmarinaysa in ajarkii jamaacada aad ku helayso adigoo jooga qolkaaga haddii aad ka mid tahay dadka magaca iyo darajada sare leh waxaad ku xajinaysaa adiga iyo asxaabtaada si raaxo leh iyadoo ay ku wardiinayaan tiro badan oo ilaaliyaasha Sacuudiga ah ha u arkin midaas dhibaato weyn hogaamiyaashu waxay u baahan yihiin in la waardiyo dadka taajiriinta ahna way xaq u leeyihiin inay ku raaxaystaan hantidooda dhibaatada ugu weyn ayaa ah in Maka aysan ahayn Makadii ay yaqaaneen awooyaashiina 95% astaamihii ay leed magaalada Maka waa ay tirtirmeen 20 sano ee soo dhaafay gurigii hooyadan Khadiija waa la dumiyay waxaana laga dhisay 1400 oo musqulo dadweyne gurigii Abuubakar Siddiq waxaa laga dhisay hotelka Hilton gurigii uu ku dhashay nabiga islaamka Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaa loo bedelay suuqa xoolaha iyo maktabad weyn taasoo la diiday in la kala gudaheeda sidoo kale waxaa la dumiyay tiirarkii taariikhiga ee dawladda islaamka Cabbaasiyiinta Umayyidiinta iyo Usmaaniyiinta kuwaasoo ku yaalay xaramka magaalada Maka ee maanta waxay shabahdaa magaalada Las Vegas طبقية الدار يقيمه دقالقة هل هبين وأدق أنصت إنا ساعة دار تدير أي برج ساعة تاسو شيء كويس كعبده وحيكوك عيسى قيمة نشوفنا $. دولة السعودية waxay sheegtay in isbedelada ay ku sameynayso Maka ay ula jeedo inay u bedesho magaalo casri ah iyadoo ay taagantay su'aal weyn taasoo ah xiriir ka dhahay casriyeynta magaalada iyo burburinta astaamaha taariikhiga waxaynu soo bandhigaynaa shay muhiim ah waliba aad u khatar ah magaaladan waxaa lagu magacaabaa Darciya waa magaalo madaxa dawladii hore ee Sacuudiga taasoo ku burburtay gacantii Cusmaaniyiinta sanadii 1918 dawladda Sacuudiga ee maanta waxay u istaagday inay dib u dhisto astaamihii taariikhiga ah ee magaalada Darciya waliba iyadoo la casriyeynayo magaalada iyadoo la ilaalinayo qaraarada UNESCO waxaa dib loo dhisay dhismayaasha iyo guriyihii madaxdii dawladda Sacuudiga ee hore waxaana laga dhigay madaxafyo taariikhi ah heerarka UNESCO way yaqaanaan astaamaha taariikhiga ee magaalada Darciya laakiin ma yaqaanaan Maka taasoo fadwo ay bixiyeen culimadii waaweyneed ee Sacuudiga ay ku baneeyeen burburinta qubuuraha qaar ka mid ah saxaabadii hore iyagoo xujo uga dhiganaya inay la dagaalamayaan bidcada shirkiga iyo in la caabudo qubuuraha haddaba boqortooyada waxay ilaalinaysaa hidaha iyo dhaqankii hore ee boqortooyooyinkii soo maray Sacuudiga iyadoo taas cagsigeeda burburinaysa hidaha iyo dhaqamada islaamka ee ay jecel yihiin dadka muslimiinta waxayna u bedelayaan dhulkii qiblada hoteelo badan oo laga soo dhiraandhiriyay reer galbeedka waxaana agagaarka Kacbada barakeysan qariyay oo ay dhaxda u gashay dhismayaal dhaadheer intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa mowduuceena maanta fadlan ku soo biir janaalka Xogbaare adigoo taabanaya calaamadda subscribe furanayana gambaleelka si aad u hesho muuqaal walba cusub oo aan soo gelin janaalka Xogbaare. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi